saraakiisha ka tirsan ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa soo bandhigay ku dhawaad 100 askari oo ka tirsan ciidanka argagixisada Al-Shabaab isla markaana ay sheegeen inay ka soo qabteen dagaaladii ka dhacay muddooyinkii dambe dowlad deegaanka Itoobiya waxay geesta kale ay sheegeen in maxaabiistan ay la socdeen saraakiil sare oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab isla markaana ay khaarijiyeen ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya taliyaha ciidanka howlgelinta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo si rasmi ah warbaahinta maanta ula hadlay ayaa si rasmi ah waxa uu taliyuhu u sheegay isla markaana warbaahinta uu la wadaagay ku saabsan ilaa 100 askari oo ka tirsan Al-Shabaab ay soo qabteen geesta kale taliyaha waxa uu sheegay isla markaana uu la wadaagay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale qaar kamid ah ciidamada soo qabtay ciidankaasi ka tirsan Al-Shabaab in ay xilligan ay wali sii wadi doonaan howlgalka ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan ciidankan iyo booliska waxaana haatan jira warar rasmi ah naga soo gaaray dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya wararkaas oo ku saabsan in xaaladdu ay tahay mid degan wali aysan jirin goobihii dagaal ku dhaxmaray ciidankan iyo booliska iyo sidoo kale Al-Shabaab inay haatan xilliga ay yihiin meel joogeed aad u degan yahay taliyaha ayaa sidoo kale afku wuxuu ku dhuftay inay ku dhawaad ka soo qabteen hubka waaweyn ee dowladda u dhacay sidoo kale qoryaha yar waxa kale ay soo qabteen miinooyin fara badan oo ay rabeen inay ku qarxiyaan goobaha ay qabsan rabaan Al-Shabaab ayaa hore u sheegtay in deegaankaasi hore u weerari doonto waxaana xog rasmi ah oo naga soo gaaray dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay si rasmi ah u tabaxayaan in jawiga degan yahay gabahaan baa jiray wax dagaal ka socda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ciidamo ka tirsan ciidanka new booliska oo warbaahinta si rasmi ah ula hadlayay muddooyinkii dambe ayaa warbaahinta ugu dambeysay caawa soo gaaraysa waxay si rasmi ah u tabaxaysaa in jawigu uu yahay mid degan walow aysan jirin wax dagaal caawa ka socda dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya qaar kamid ah dadka reer guraaga ah ee degan dowlad deegaanka ayaa xog kala duwan la wadaagaya ciidanka new booliska isla markaana la soo wadaagaya haddii ay arkaan haraadiga kooxda argagixisada Al-Shabaab oo ka carray deegaanadaasi iyagoona haatan gabihaanba la soo dhaway ciidamada ugu tiro badan oo ka tirsan ciidanka new booliska isla markaana soo gaaray dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaana halkaasi ilaa haatan ku sugan ciidamo fara badan oo ka yimid magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ciidanka new booliska ee gaarka ah dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa gabihaanba la wareegay goobihii hore ee fariisinka u ahaa kooxda Al-Shabaab isla markaana hore uga qabsadeen waxaana jirta in ay ilaa haatan ay degan tahay jawiga goobahaasi hore dagaalka ugu dhaxmaray si rasmi ah ayay ciidanku u sheegeen inay soo bandhigi doonaan kooxo kale oo ka tirsan Al-Shabaab ilaa haltan ay yihiin qayb hordhac isla markaana warbaahinta aan si rasmi ah loola wadaagi karin xogta rasmiga iyo sidoo kale saldhigyada la geyn doono kooxdan argagixisada Al-Shabaab ilaa ku dhawaad 100 qof oo laga qabtay waxaana ciidamadu ay sheegeen in lagu xiri doono qaar kamid ah saldhigyada ku yaala dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya war rasmi ah naga soo gaarin xogta ku saabsan in goobaha la geyn doono ciidamadan maxaabiista ah ay si rasmi ah ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan ciidanka new booliska ay gacanta ugu dhigeen saraakiisha ayaa qaybta kale waxay sheegeen in ay ilaa haatan jiraan kooxo fara badan oo ka tirsan Al-Shabaab oo ku dhuumaalaysanaya deegaanada dagaal ka dhacay isla markaana ciidanku ay ku raad joogaan haraadigooda inay gacanta ay ku soo dhigaan warar rasmi ah oo haatan naga soo gaaray dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee geesta kale waxay sheegayaan in ciidamada new booliska wali ay ku jiraan howlgallo ballaaran oo lagu bacsanayo kooxda Al-Shabaab si gacanta loogu soo